culimada gobolka Togdheer oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah salaadiinta gobolkaasi ayaa soo saaray baaq ay ku cambaareynayaan dagaalka ka dhanka ah Gaza. baaqan oo ay ku magacaabeen baaqas berbertaag iyo taageero Gaza ahana 4 qodob ayay ku sheegeen inay cambaareynayaan dagaalka ka dhanka ah jiida Gaza iyo cid kasta oo taageero siinaysa. waxayna ugu baaqeen muslimiinta caalamka iyo cid kasta oo damiir bani aadamnimo leh inay isgarab taagaan shicibka reer Gaza. waa kan Sheekh Cabdilaahi Baashi oo ka mid ah culimada gobolka Togdheer oo akhrinaya qodobada baaqa culimada. waxaanu aad uga damqanaynaa isla mar ahaantaana cambaaraynaynaa gumaadka iyo xasuuqa yuhuuddu ay ku samaynayso walaalaha iyo reer Falastiin ama reer Gaza. sidoo kale waxaanu cambaaraynaynaa cid kasta oo siisay ama siinaysa taageero toos ah ama mid dadban. waxaanu ku taageeraynaa walaalaha iyaga reer Gaza wax kasta oo awoodayada ah oo ay ugu horeyso ducadu, taasoo ah silaaxul mu'min, hubka qofka mu'minka ahi oo waxa weeye gacanta uu ku haysto. sidoo kale waxaanu taageeraynaa in walaalaha iyaga reer ay xaq u leeyihiin inay isdifaacaan oo ay iska difaacaan cadowga soo weeraray. qadiyada reer Falastiina ay tahay qadiyad ka dhaxaysa ummadda islaamka oo dhan ee aanay ahayn qadiyad gobol. waxa aanu ugu baaqaynaa ummadda islaamka ah meel kasto ay joogaan iyo cid kasta oo damiir bini aadanimo leh in ay isgarab taagaan una hiiliyaan walaalaha reer Gaza iyagoo la wadaagaya dareenka iyo ducada. waxaan aad uga xunnahay aamuska caalamka islaamku uu ka aamusay xasuuqa ka socda Gaza. baaqan ayaa ku soo beegmaya xilli dagaalka Gaza geystay dhimasho in ka badan 1900 oo reer Gaza, dhaawacuna kor u dhaafay 9000. Cabdimaalik Muuse Oldoon, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, Bro.